arrinta xasan shire iyo madaxweyne deni ay wadaanna dalka iyo dadka ma dhaqdo shalay waxay ku dhawaaqeen xabad joojin waxaa la yidhi ninbaa waxaa la yidhi nin la yidhaha faruurey oo waagii hore tuug ahaa oo dadka dhici jiray oo mixnad ahaa oo nin aad ummadda u dhibay ahaa yaa waagii dambe waxaa la yidhi ninkaani wuxuu noqday ninkii faruurey ahaa shiikh buu noqday nin aad u yaqaanay oo dhaqankiisa yaqaanay yaa wuxuu yidhi ma faruurey baa shiikh noqday haa oo hadda faruurey waa shiikh oo wax dhici mayo been sheegi mayo wax walba waxaa la yidhi ninkii maasha allah ayaan hadduu joogay yaa maalin dambe waxaa la yidhi ninkii faruurey ahaa gabarna waa faraxumeeye reerana alaabu ka xada halhay soomaalidu yeelatay buu ninkaasi marka reebay wuxuu yidhi awalaan yaa faruureyaa fiqi noqday gallankii shalay ku khudbaynaya anigu addoon noqon mayo oo inta ciidanka iyo qalabka la baxay isagu boosaasi ku soo duulay oo looga turay in xabad inta lala aado ilaa ra'iisul wasaare iyo madax dhaqan iyo cid walba inta isugu timid la yidhi war wuxuu rabaa ha loo yeelo oo maantay wasiir ku ah oo wuxuu geystay aan lagala xisaabtamin iyo xasan shiroo shalay saliid isagu ku dhaawacmay dagaalkeedana qayb ka ahaa iyadoo maxastiya maatadu dariiqyada noo daadsan yihiin oo maanta iyagu kuraastii noogu fadhiyo wasiirra noo ah iyo dani oo raggii shalay puntland u dumiyey meesha la yidhaahdo jabuuti u aaday oo raggii carto ahaa oo aanu ku sharafnay inay madax noo noqdaan horta inaysan nooga raynayn waa muuqate waxaanse leeyahay reer puntland ay isdaba qabteen waxaan rabaa halkan baaq inaan uga diro dhallinyarada ilmo adeerka ah oo shalay difaaca ku wada jiray oo xabadda iyo qorraxda iyo dhaxanta u taagnaa inay dadkooda ka ilaaliyaan cadowga aad shalay ilaalinayseen weli meeshiisiibu jira maantayna waxa isku dhumaya oo isku daadanaya oo dhiigoodu isku daadanayaa waa idinkii xasan shire iyo deni iyo ninka la yidhaahdo mahiigana dan idinma hayaa xabadda joojiya idinkaa xabadda ridaya xasan dagaal kuma jiro gaari mukayflu ku soconayaa 20 wiil baa dusha u saaran danina guri qasriga ku jiraa waa ladan yahay waxa dhacaya iyo qorraxda iyo oonka iyo xabadda iyo dhaawaca iyo meydkiina dan kama laha mahiigana waa la mid intii kaloo afkaarta qabto oo dawladda ku jirtaana waa la mid baarlamaanka aamusani waa la mid joojiya xabadda dhalinyaro labada dhinacba waxaan leeyahay kuwa ciidanka dawladda ah iyo kuwa BSF ba waxaan leeyahay xabadda joojiya meesha ay maraysa rag baa tihiin waxbaad maarayn ka dhaan u tura dadkiinna u tura mustaqbalkiinna u tura maxasta dariiqyada daadsan joojiya xabadda baaqaasi wuxuu ku socdaa dhammaan inta maanta xabadda isu haysto isku hor fadhida magaalada boosaaso kuwa meelaha kale ka imaanayo la leeyahay gurmad bay ku tagayaan waxaan leeyahay ka jooga waxaan kaloo ku talinayaa shalay warkii uu inoo sheegay wasiirka amnigu oo idaacadda kaga hadlay wallaahi billaahi tallaahi inuu been yahay meeshaydaan ku garanay waayo waxaa ii muuqanaysay amaan hoos u ogaa ulajeedka hadalka loo dhigay inuu ahaa maadaama 2 jeer ay meesha ku jabeen martabaabushaa inta galaan inay yidhaahdaan meeshaan aynu soo afjar caqliga loo keenayna wuxuu ahaa nimankii waa biila ay yihiin waa go'doon meydkii bay aasan waayeen gaajay u dhimanayaan war ninka shalay duhurkii intaad diridheen oo daraad diridheen labadaba iska kaa dhiciyey waa biila yahay meyd buu aasan waayey waa soo afjaraya inaad dhibaato kale u gasho maahay dawladdeena qowlkeeduna qowlkii shalay ayna tiri weeye kaasaynaan ku aamini karin dadka reer puntlandna waxaan leeyahay haddii uu dhaqan yahay iyo hadduu siyaasi yahay iyo hadduu dhalinyaro yahay iyo hadduu haween yahay
aynu u istaagno sidii xabaddaasi meesha ay maanta maraysaa aysan inoola dhaafteen dowladnimadeennana aan loo burburiyeen. dowladdu waxay hadda sheegtay inay January qaban lahayd doorashadii degmooyinka dhimanaa. natiijadii ka soo baxday saddexda degmo markay arkeen inay ku guuldaraysteen inaan Puntland doorasho ka dhicin baa Boosaaso loo weeraray. nin walbow taa ogow. January doorasho la inoo qabanayaan jirin, doorasho cod iyo